بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وبعد. داودyaasha qiimaha ee qaayaha badan waa walaalkii maxamed ibraahim cawad iyo barnaamijkeena cisha caashaqa. barnaamijka caawa waxaa nagala qayb galaya fadiilatu sheekh nuur kismaawi oo ka mid ah culimada diinka wadanka Finland magaalada Helsinki. sheekh nuur, assalaamu calaykum waraxmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي أبو أحمد حياك الله وبياك. sheekh nuur, saad la socotid jacaylka iyo wanaaga ka dhaxeeya lamaanaha isqaba waxyaalo badan ayaa xoog kor ugu qaada oo kobciya oo biyeeya oo cunto iyo nafaqo u noqda. waxyaalana hadimo iyo dhibaato iyo cudur bay ku keenaan. insha Allah waxaan ku bilaabaynaa dhinaca cudurka iyo dhibaatada. dhinacee ayay mataqaanaa cudurku ka imanayaa? insha Allah waad fahmaysaa. dhinacee ayuu ka yimaadaa cudurradu? sidee loo daweyn karaa? maxaa laga dhowrayaa qofka? gabadhu ay ka dhowraysaa ninkeeda, ninkuna uu ka dhowrayaa xaaskiisa. شيخنا الفاضل فليتفضل مشكورا وماجورا كسدو. بارك الله فيك أخي الكريم. أولا آد أيانيني سلام يا أذيق أبو أحمد شيخي قاليق يا ولاله قيمها بضن داوياشا أنا داوانا كحرا برنامج كان قيمها بضن أن رجينا إنو أمدا إن شاء الله تعالى ميلوين وأقله أو نقض وح إن شاء الله تعالى متقانا قيمة بضن له. ولالك قاليق سؤال أي وديس وسؤال آد مهم وسؤال تاجن بل وسؤال عصري حتى تاجن خاصة كده جرتا qoysaska Soomaaliyeed ee annaga mataqaana aynu ku abtirsanno guryaheena ay maalwal ba su'aasha ka taagan tahay weeyaan. jacaylka walaalkayga qaaliga ahow ama nolosha guriga labada qof ka dhaxaysa waxyaalo badan ayaa qiimo iyo qaaya u yeelo sara u qaado samaawaadkana geeya. jacaylka waxyaalo badan ayaa kobciya oo mataqaana isku soo dhaweeya labada qof oo isjecel ee guriga labadiisa tiir ah. sidoo kale waxyaalo ayaa jira toddobada dhul la aada oo baabiya jacaylka ee burburiya ee sidii sibirkii oo kale kharaar ka dhiga. waxyaalo badan ayaa jira labada qof kala fogeeya, maalinba maalintii ka dambaysa ay sii kala fogaanayaan ayagoo aanan dareensanayn. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa shar u tooghay khayr waxba kaama dhibe. haddii wanaag uu yimaado alxamdulilaahi waa waxaan doonaynay weeyaan. laakiin waxaan doonayaa insha Allahu ta'ala inaan su'aashan aan ka abaaro maxaa jacaylka gumaada, maxaa nolosha labada qof baabi'iya, maxaa kobcintii u diida, maxaa dhulka la gala, maxaa aabihii iyo hooyadii sii kala jeediya oo aanan isku soo jeedinin. halkeebay mataqaanaa mushkiladu ka jirtaa? taas ayaan doonayaa, meesha ayaan rabaa insha Allahu ta'ala inaan ka ambaqaado weeyaan. kelmadda waxa ka horeynaya insha Allahu ta'ala inaan marka hore aan iftiimiyo diinteena islaamka ee xaniifka ah ee Allahu nasiya subhanahu wa ta'ala suubanaheena uu noogu soo dhiibay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi. awalan waa diin xafiday oo ilaalisay oo weeleysay labada qof ee guriga aasaaska u ah mid walba xuquuqdiisa xirtay oo meel ku gunuday. waa diin wiilka iyo gabadha guriga uu ka aasmay mid walba sharaf iyo qiimo u yeeshay, mid walbana xad iyo boos iyo meel ku xirtay weeyaan. diinta islaamka waa waxay kaga duwan tahay diimaha kale ee koonka iyo dunida ka jira. waa waxa maalin walba ay diinta u soo galaan kumanaan kun oo nolol fiican oo qiimo leh ku waaya diimahoodii hore iyo xuduud iyo wax kala xada waayay xuquuq meelaysan. waa waxay diintan u soo galaan. أيها الأحبة في الله ولا له إداونا يقيمها بدن دينتنا ميل بي كحرت لوذا قف قيمة يقاينا أي شيء حدود بين أي شيء قبض يويل كإسقاب حدود بين أي شويان حدود دراد ذا ولا له قال أهو أيو متقانا غوريغا مسلم كأه مسلمين تو كل سنيهاي قبدي ويتقانا وح لجربي ويل كنوا ويقانا وح لجربي ويان دبعتدو وحي مركب باللابانيسا مركي لبادي قف مدول بحث كيسي أما شقذي لو إجمدي أو لجربي ومتقانا كسو بحوايا ويان. سؤال كمنان كن أو قف إسويدين يان
gabdha aad iyo aad u qiimo badan ay isweydiinayaan waatana su-aashu waxay tahay xabiibkayga iyo zawjkayga qaaliga ah lamaanaha nafsadayda ruuxdaydii labaad aad iyo aad buu mataqaanaa gurigiisa u qiimeeyaa ilmihiisa wuu tixgeliyaa waajibaadkii gurigiisii wuu ka soo baxay hal habeen gaajo kuma aanan seexanin maxaa kuu macaan maxaa kuu kharaar ayuu leeyahay sidaa ayuu cirka iyo dhulka laba dhexdooda iigu wadaa laakiin tan iska ilaali waa laakiintan nala hartay oo gadaal noo celisay laakiin ninkaygu waa nin i caaya waa nin i lacnada waa nin ab iyo isir ii caaya hooyada yaabahay buu caayaa meeshaan ka soo askumay buu caayaa qabiilkan ka dhashay buu caayaa qaabkayguu caayaa cuntadan kariyuu caayaa wax walboo noloshayda ku saabsan ayuu caayaa afkiisa lacnada iyo mataqaanaa caydu kama baaba'da weeyaan walaalkayga qaaliga ahow labinada ugu horeysa oo ama dhagaxa ugu horeeya oo burburaya kana burburaya darbigii jacaylkiina aad u dhisteen inuusan burburin dhagaxa ugu horeeyo burburinaya waa cayda weeyaan waa cayda waxaa caynaysid oo aad mataqaanaa ku luqluqanaysid caydayda 24 saacaad caynaysid weeyaan soo gabadhan maahan xabiibadaada soo maahan gabadhan soo ruuxdaadii labaad ma ahan gabadhan qaaliga ah soo haafkaagii kale ma ahan gabadhan qaaliga ah soo tii dunida kaa dooratay ma ahan gabadhan soo ma ahan gabadhii aabbaheeda qaaliga ahaa ee macaanaa ee qalbiga ka jeclaa gabadhii kaa soo raacday soo ma ahan gabadhan soo ma ahan gabadhii hooyadii dhashay ee qaaliga ahayd kaa soo raacday soo ma ahan oo agteeda ay ka ahaan jirtay cunugta yar ee mataqaanaa nuunaha ah ee maxaa kuu kharaar maxaa kuu macaan la oranaya soo ma ahan gabadhan soo ma ahan gabadhii kaa soo raacday walaalkii ayada la dhashay oo wax walboo dunida maraya kaga mataqaanaa ka masayri jiroo ka cayrin jiray hawada xataa mataqaanaa u diidana inay sankeeda marto soo maaha gabadhan soo maaha gabadhii nolosha kula soo qaybsatay soo ma ahan soo gabadhii dhulka kula soo seexatay jidka ma ahan soo gabadhii dirin kula seexatay soo ma ahan soo gabadhii shumac kula seexatay ma ahan soo gabadhii nolosha macaan iyo kharaar mid walba kula soo martay ma ahan gabadhan soo tii garabkaaga istaagtay soo tii kharash hiil iyo hooba ku siisay ilaa aad ka noqotay ninkan hadda aad tahay iyo magacan hadda aad tahay soo gabadhan ma ahan gabadhan way ku soo raacday maxay kugu soo raacday xabiibnimaday kugu soo raacday raganimadaday kugu soo raacday shahaamadaada iyo mataqaanaa dadnimadaaday kugu soo raacday gurigaagay kuu timid guriga markay kuu timid waxay noqotay xaaskaagii ayay noqotay ilmahaagii hooyadooda ayay noqotay maalin walba jikaday kuugu jirtaa cunto tan ugu macaan ayay barataa qaabkay u karin lahayd iyo siday u karin lahayd maalin walbaba nooc iyo nooc cuntay karinaysaa wajbaba miday ka macaan tahay iyo miday ka heer sarraysay karinaysaa talow ma ayadaa karsanaysoo rabta inay isku dejiso ku qabowda maya xabiibkaygaan u karinayaa oo adiga ah adigay kuu karinaysaa yaa qaali adigay kuu samaynaysaa oo intaasoo rafaada u maraysaa nafteeda ma ahan kadib ciyaalkaaga cunto u karinaysaa ciyaalkaaga iyo adiga ayay cuntada u karinaysaa kadib weelashii ayay nadiifinaysaa gurigii ayay dhaqaysaa hooshii aad taqaanay ayay samaynaysaa ma taqaanaa xanuun intee la eg baa gabadhaa soo gaaraya taagnida ay taagan tahay ma dareemaysaa gumadaha iyo lugaha siday u xanuunayaan kuwabku siday u xanuunayaan dhabarku siduu u xanuunayo jilbuhu siday u xanuunayaan ma garanaysaa madaxa suu u xanuunaya ma garanaysaa noloshaas bay ku jirtaa intay adiga kula nooshahay waa nolol bilaa muqaabil ah wax aad ku siisid oo ilaahay abuurtay ma lahan gabadha qaaliga ee sharafta ee walaashaada badan qiimaha badan ah maalin kalimaha waxa sidaa ay tahay markay caafimaad qabto kaliya maaha waxay intaa ku samaynayso markay jiran tahay oo dhiig iyo caado ay qabto mar xanuun kale uu iska hayo hal maalin kaliya kama maqlaysid maanta saan ayaan ahay hadday ku tiraahdo maanta waa xanuunsanahay
waxa laga yaabaa inaad xanaaqdid baa laga yaabaa kaanama inay tahay jaariyad lagu keenay in kaliya ay adiga ku khidmayso weeyaan aaway ixsaaskii ma sidaas ayaa raganimada ah kadib intaasoo dhan markay kuu soo samayso ayaad lacnadaysaa oo caynaysaa laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah wallaahi taas wallaahi thumma wallah ina gumeednimo hadday jirto waa middaa weeyaan doqonnimo hadday jirto waa middaa raganimo xumi hadday jirto waa middaa weeyaan in gabar intaasoo dhan kuu soo samaynaysa yaa aad caysid oo aad lacnadid waa wax aad iyo aad u xun weeyaan ma taqaanaan culamaa'u nafsi waxay yidhaahdeen ayagoo ka hadlaya ninka sidaasoo kale u caytamaya ee xaaskiisa qaaligaa caynaya ma taqaanaan waxay yidhaahdeen waa nin shakhsiyad la'aan ah aanan shakhsiyad haysanin waa nin raganimadii ay ka tagtay haddee raganimaha u fahmin tii sariirta keliya للأسف رجنيما أنك دنكا كليبان كفيرنا رجنيما ذا حقيقة ما أنا فيرنا ويان أو نك رج وكن قنا يويان أو صحيحة ما فيرنا يويان وحي علماء سيتو أي رهذين علماء النفس وحي رهذين نك عاية جبديسة أفري الله باتنك ساكو قيلنا يو عينيا إيه الكيد يا عينيا نك سيتو وحويان وانين شخصيات آن لهين رجنيما ذي أي كلمتي xoog ayuu ka raadinayaa marka cayda ayuu xoog iyo tabar ka raadinayaa gabadha marka caysid maxaa dhalanaya samrada iyo waxa ka dhalanaya maxay tahay marka xaaskaaga aad caysid oo ayada shakhsiyan aad caysid cuntadeedii aad caysid aad tiraahdid cuntadaadu waa kharaar wax la cuni karo ma ahan saliida ku badan cusbada ku badan maalin walba hal nooc baad noo karisaa inta sidaad oran lahayd akhil kariim xaaskaaga haddaad ku dhaantid wax karinta saacid oo kari horumar iyo tatawur ayaa la gaaray haddaadan garanaynin buugaagta cuntada ma taqaanaa laga qoray oo laga alifay u keen bar xabiibadaada ha caynin hana jaa'ifaynin weeyaan dadka dariskana ha u sheegin dadkaaga iyo walaalaha gabdhahana ha u sheegin weeyaan sababtu waxa weeyaan waa karaamadaada iyo sharaftaada ceebteeduna waa ceebtaada weeyaan ceebtaada banaanka ha u bixinin akhil kariim gabadhaada jirmigeeda waxa ka sheegin jirkeeda waxa ka sheegin ha oranin waxa tahay iska barartay wax iska barartay oo iska weynaatay ayaa tahay ha oranin aad baad u cayishay ha oranin wallahi thumma wallahi waxa gabadha uga sahlan in sida la yiraahdo hadalkeeda dhagahaas mata hadalka uu dhagaheeda ku dhaco waxa uga sahlan in toori la galgaliyo weeyaan inaad gabadha tidaahdid waad cayilan tahay waad fool xun tahay kan ayaa tahay waxa ayada u dhaama in la dilo qoorta laga jara u dhaamo weeyaan sababtuna waxa weeyaan dadnimadeedii unuuthadii iyo mataqaanaa dadnimadeedii iyo waxay ahayd kiyaankeedii oo dhan baad caysay oo waxaad ka sheegtay waxaad kala mid dhigtay inay waxba aysan ahayn oo dadka kale ay ka fiican yihiin oo aad soo arkootay wax ayada ka fiican ma fahmaysa أخي الكريم قبضنا هدي عيلان تهي نيادة هتكجبينين سانا كوكو جعلها حبيبتي يا روحي سيدان بان كوكو جعلها أنا مهم ماهن جير كانيتو بورا مهم أكتيدا كماهن مسكح ذا أخلاق ذا قلبي معانا يا أكتيدا قيمك له هذا الكاس قبضنا هذا كله ويان وحي هيليسا كلسوني بي هيليسا كلسوني كبيرتا أيضا إني ميزان كذا دينتا ويان إني ميزان كذا كلسوني دينتا ay ku abuurto ayaa iimaanaysa weeyaan ha oran hebla fiiri siday tahay ha oran intan fiiri siday tahay ha oran modelka siday tahay fiiri weeyaan gabadhaada hooyadeed iyo aabaheed ha cayni hooyadeed iyo aabaheed ha caynin weeyaan qofka muslimka in la caayo نبي صلى الله عليه وسلم محولي صلوات ربي وسلامه عليه محولي النبي صلى الله عليه وسلم قفك مسلم كأه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وحديث متفق ويان قفك مسلم كعيذي سوء ها وفاسق نمويان إن قف مسلم آد عيسيد وفاسق كلمة باكو حقيقو بيسا أنيقو walaalka oo ku jecel lama doonayo wallahi thumma wallahi in adigu aanan ogeyn aad faasiq noqotid macaad allahi weeyaan nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi qofka muslimka in la caayo waa faasiqnimo ku leeyahay
dagaalkiisuna waa gaalnimu nabigu ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam raganimada sidaa ma ahan walaalkayga qaaliga ahaw kaalay aan ku bare raganimadu waxay tahay astaghfirullah ina anigu ku bare kaalay ha ku bare nabigi sallallahu alayhi wasallam raganimada laga soo gaaray waxay raganimo tahay weeyaan nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli kiina inugu khayr badan waa kan ehelkiisa iyo xaaskiisa iyo ilmihiisa ugu khayr badan anigaana inugu khayr badan buu nabigu leeyahay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayh aniga ayaana inugu khayr badan raganimada dhabtaa waa midaa weeyaan walaalkayga qaaliga ahaw nacam nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas ayuu ku leeyahay weeyaan waxaan ku weydiinayaa walaalkayga qaaliga ahaw waxa laga yaabaa in gabadhaada aabaheed iyo waalidkeed iyo dadkeeda inaad wax ka sheegtid weeyaan bal ayagoo hortaagan hooyadii ay taagan tahay aabihii uu taagan yahay walaalihii ay taagan yihiin inaad guriga soo gashid hortoodana aad ku caysid gabadhii ayaa laga yaabaa la xawla walaa quwwata illa billah arrintaa waa arrin aad iyo aad u qaab daran waana arrin aad iyo aad u xun walaalkayga qaaliga ahaw inaad iska dhaaftidna aad iyo aad ayay muhiim u tahay diintaada iyo aakhiradaada iyo adduunkaagaba sidaas ayaa muhiim u ah weeyaan waxaa laga yaabaa walaalo badanna iga soo gaaray walaalkay qaaliga ahaw ha caynin hana yasin xaaskaaga qabiil ay ka dhalatay daraaddiisa ha u yasin qabiil ay ka dhalatay daraaddiisa ha u yasin walaashaada qaaligaa sababtu waxay tahay adigaa guursaday markii hore adigaa marka hore raalli ku ahaa weeyaan caqiidadan yaysan naga dhaadhicin 4.5 la yiraahdo yaysan naga dhaadhicin weeyaan aniguna kaamil baan nahay adiguna nusqaan baa tahay weeyaan hebel baa ta ciddaas baa ka dhalata billaahi calaykum qabiilha ku halkuubuu abu jahal gaarsiiyey abaa taalib aaway quraysh sayid ayuu ahaa boqor ayuu ahaa wuxuu ahaa nin dhaqameed ayuu ahaa sultaan ayuu ahaa dadka ugu qaalisan qabiilka ugu qaalisan buu ka dhashay abaa taalib aaway abu jahal aaway dadka halkay aadeen abulahab aaway yay ahaayeen qabiilkoodu yay ahaayeen walaalahiga qaaliga ahaw qabiil dadka ugu sharafta badan bay ka dhasheen qabiilkoodii wax miyuu u qabtay aaway bilaal alxabashi sayidina bilaal aaway suhayb arruumi aaway yuu ka dhashay carab muusan ahayn bilaal alfarisi aaway dadkaa aaway jannaday galeen jabaabiradaana naartaa la geeya weeyaan qabiil aaway wax uu tarayo ilaahay abuurtay ma lahan weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidkiisa halkuu kaa maray marka uu leeyahay man abta'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu markuu nabigu leeyahay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh qofka camalkiisa uu dib dhigo oo camal wanaagsan aanan samaysanin oo jannada u hogaamiyo horseedo hor socda nasabkiisu ma hor socdo nabigu leeyahay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh idan qabiil wax uu taraya ilaahay abuurtay malahan weeyaan waxaan u malaynayaa qabiil waxa uu gooyo iyo waxa uu gudo adduunka dadka jooga annaga ugu mataqaanaa og haddaan soomaalinahay weeyaan heerka uu maanta namarsiyana waad arkaysaan walaalahiga qaaliga ahaw arrinkan mawduucan aad iyo aad ayuu muhiim u yahay weeyaan waxaan doonayaa marka insha allahu tacaala inaan ka hadlo waxyaalaha aan mataqaanaa isleeyahay guriga soomaaliyeed ama qoyska soomaaliyeed ayaa u baahan gurigooda ama waxyaalaha aan laga helin oo aan jeclahay in laga helo guryaha soomaalida weeyaan waxa ugu horeeya waxa weeyaan oo aniga aad iyo aad aan u danaynayo aan jeclahay waxa weeyaan cadamul xiwaar bayna zawjayn labadii rukni labadii tiir ee guriga ka dhisnaa aabihii iyo hooyadii in uu ka dhaxeeyo wada sheekaysi uu ka dhaxeeyo ninkii iyo gabadhii in wada sheekaysi ka dhaxeeyo weeyaan wada sheekaysigu aniga aan ka hadlayo ma ahan kan soomaalideena aan u badannahay billaahi calaykum guri walbo soomaaliya bal fiiriya nafsadiina ka bilaaba wiilka iyo gabadha hooyada iyo aabbaha
sheekada u dhaxayso ugu badan ee guriga ka dhaxdhacda maxay tahay aabaha markuu guriga soo galo ama hooyadu markay guriga soo gasho banaanka ay midkood banaanku ka yimaado maxay isdhaafsadaan salaan kadib salaamu calaykum wa calaykum assalaam waraxmatullah ciyaalkii ka waran ciyaalkii waa fiican yihiin haye wax soo hadlay dadkii ma jiraan wax soo hadlay ma lahan haye mataqaanaa lacagihii biilashi ma la diro wax ma soo dhaceen maya khalaas أهم الحوار أو أقومهم سن قيس كصوماليات أنت سوكو صون نقنقضا أنت هدان لطاف وحبضا مطافو أنت سوكو صون نقنقضا وقولي ملصا وعتمي محالة دير العتم صود عضي وحساسو كلاويان حوار كأنيقو أنربا مركا أو أنربا لوذا قف إسقابا إنو نحمر أو أنكلا أهي أو دمية قريها وحاويان الحوار الرومانسي وحلي راهدو جعيل أن أذيك يقبل إسقابا أتكشى كيستان جعيل كيني أسوع شتان لحظات كي يدقيق ذيه يسكن ذي أمهم سنة تاريخ ذيني أدس حسوسيسان حبيبي ما حسوستا تاريخ ذا حبيبي مال انت ما حسوستا حبيبتي وان حسوستا مال انت مال آدو قيمة بدن باي أحيد نوع حوار أذيقو قبض هذي قعنت هايستا قعنت قربك وكو ساري هاي دانك كردون كان يحلاش هذا ويان عيب ما حلاش هذا ويان أذيقو جعل كاغانا موجينيا إناد حوار لبذينا خاصنية جعل كينا أتكشى كيستان حالدينا خاص كأكشى كيستان إن أدليذهين أيان جعلها ويان وانو شيء مهمة أو أن جعلها إن لغو صدر قريهين ويان داد بدن وسمية ويجران لكن انت أغبضن ما شاكيستان دادك شاكو قلبيات ما شاكيستان شاكي قلبيات باربا إنا نحمرتو وذاتك يحاسكي سقيمها بدن جوي معان أيغو كجرا ساعتها قيمة بدن أيغو هايستا مرحلة في عن كجرا إنا 8 دقيقة مالين والباقي وذا فريستان سيداس أيا آدي قيمة بدن أو جعيلكي سو تجديدينيسو سو عصبونيسين سويان ونقطة مهمة وأن جعلها إن لقدرو فامل لذا قريهن ويان إن لقدرو أخي الكريم مشكلة دلابات قريها الصومالي ذا هايساتا بربريا جعيلك وحاويان عدم التنازل من كل الطرفين أبيه إيو هويذي مبدأ ذي إنو قفل بكودة جناده أبيه رأي بوليه هويذي رأي بيليه ذا أما أرين باسو عصبوناتو لغا حضلي مركاسو قفل بو ميل كودة جويان مصلحتنا waxay ku jirtaa in labadan qof ay soo degaan oo ka soo degaan ra'yigoodii oo meel dhexe iskugu yimaadaan maya iskuguma iimaanayno meel dhexe haye anigu waxaan ahay aabihii gurigaan ahay haye allahna wuxuu leeyahay ar-rijaalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bumeesha la soo fadhiya ninka ragga waa ninka qawaam aniga guri ka ah aniga ninkii ragga ahaa aniga wax walba saan yeelaya xiwaarkii iyo maslaxadii weyneed in la fiiriyo oo aan maslaxada hoose la fiirinin oo ra'yigaaga aaba ka soo deg adna hooya ra'yigaaga ka soo deg meel dhexe iskugu yimaada oo maslaxadii ilmaha iyo maslaxada gurigiina iyo wada jirkiina uu ku jira weeyaan marka waa in tanaasul la sameeyaa midda koowaad waa in sheekaysi la sameeyaa midda labaadna waa in lagu daraa qoysaskeena qaamuuskooda inay ku soo darsadaan wax la yiraahdo in la isku tanaasula weeyaan midda kale waxa weeyaan oo ugu muhiimsan oo loo baahna inaan ku bilaabo waxa loo yaqaano in mataqaana labada qof wacyi al-ikhtilaaf in mataqaana la iskhilaafi karaba inay dadku fahansan yihiin bimaana maxaan ka wadaa ninkan wuxuu ka yimid kawkab kale ama wuxuu ka yimid waa makhluuq kale maskax gooni buu wataa raganimo iyo maskax gooni buu wataa gabadhuna caalamul unsa bay ka timid waa gabar waxay wadataa maskax kale dareemo kale xisaab kale si kale mataqaana ayay u fikiraysaa ninkana si kale ayuu u fikirayaa hormoonkoodana sidaas ayuu ku abuuran yahay jirkooda ugu jira marka waxa loo baahan yahay in aabahana uu og yahay hooyadu inay khilaafi karto ka ra'yi duwanaan karto odayga hooyaduna inay og tahay in aabuhu ka ra'yi duwanaan karo oo ra'yigeeda uu ka mataqaana gara mari karo waan isguursanaa waan isqabnaa waan isjecelnahay macnaheedu ma ahan isku ra'yi baynu noqonaynaa
macnaheedu ma ahan isku si baanu fikiraynaa, macnaheeda ma ahan isku maskax ayaynu nahay, macnaheedu ma ahan isku aragti ayaynu nahay. waxaan u baahanahay aabbo walba iyo hooyo walba oo arrintan aan fahansanayn inay fahmaan in aad iskhilaafi kartaan oo maskaxdiinu ay kala duwan tahay, fikirkiinu kala duwan yahay, aragtidiinu kala duwan tahay, inaad fahansan tihiin baa loo baahan yahay. khilaafka sidiisana axibatii fillah, oo khilaafka hooyadu iyo aabbuhu iyo ninku iskhilaafaan, culummadu ka hadlaya waxay leeyihiin waxay tahay sida tawaabisha ama sida xawaajiga iyo mataqaanaa waxyaalaha lagu carfiyo suugada iyo maraqoo kale, ma aragteen? sidaasay kale ayuu khilaafku nolosha u yahay. bimacnaa maxaa laga wadaa? waxaa laga wadaa khilaaf yar markuu dhaco waxaa dhacayo raaligelin badan, waxaa soo baxaya wax walba oo qalbi lagu hayay baa soo baxaya, midkan waxyaalo kale ayuu soo tufayaa, waa la israaligelinayaa, boggii baa saafi isku noqonaya weeyaan. mararka qaarkooda marka khilaafka waa loo baahan yahay si loo ogaado waxa qalbiyada ku jira weeyaan. laakiin yaa loo baahan yahay inay iskhilaafaan? waa dadka wada sheekaysta deedna wada heshiin kara weeyaan, waa dadkaaseeta weeyaan. axibatii fillah, mushkilada kale ee soomaalideenna haysata waxaa weeye oo loo baahan yahay oo muhiim inay tahana aan arko guryo badanna dudumisa, maadaama su-aashu ay tahay maxaa jacaylka burburiya. jacaylka waxaa burburiya axibatii fillah taraakum almashaakil, mashaakishii iyo dhibaatadiioo isdul fuushayoo badatay. maanta dhib baa dhacay, ninkii iyo naagtii baa xaaskii iyo wiilkii baa isku qayliyey, mushkilad baa dhacday. haye way isku qayliyeen, way is afdhaafeen, waa la iscaayay, waxbaa dhex maray. ninkii wuu baxayaa, makhaayadahu tegayaa, asxaabtiisuu u tegayaa, meeluhu iska soo mataqaana nafisaya asoo maskaxdii u degtay. gabadhini intaa guriga ku sii mashquulsanaydo iyaduna naqaskii wuu ka sii degay, maskaxdii xoogaa way u degtay. hadhow buu ninkii soo noqonayaa, gurigu ku soo noqonayaa. markuu guriga ku soo noqdo intuu gabadhu u yimaado waa kan ugu fiican ama waa gabadha ugu fiican, sorry bay isleeyihiin, raalli noqo. kelmaddaa keliya, raalli noqo xabiibatii, raalli noqo xabiibii, adna raalli noqo. haye mushkiladii aas-aaskeedii lama faaqidin, lama shaandhaynin, lama kala qaadqaadin. aas-aaskeedii muxuu ka yimid? war aan fariisanee kaalay, haye jawi yaroo macaan aan fariisanno, aan sheekaysanno. maxaa mushkiladan keenay? lama oranin. mushkilad kalaa dhacday, haddana sidii kale sorry bay ku dhammaatay. mid saddexaad, mid afraad, mid shanaad baa dhacaysa, sorry bay ku dhammaanaysaa, ilaa marka dambe la gaaro marxalad qof walbaba afka iyo sanka uu cuncunayo oo kelmad uusan u adkaysan karin oo uu rabo inuu qarxo. heerkaasay naftu gaaraysa. naftaan yartana ma xamili karto waxyaale ka xad weyn weeyaan. ma fahanteen? marka waxaa loo baahan yahay mushkilad walba markay ina soo wajahdo in aad xallisaan ood ka fariisataan oo aad ka shuuraysaan maxaa dhacay, say ku dhacday, say ku timid. markaad ogaataan masdarkii mushkilada iyo meeshay ka timid, xalkeeda aad raadisaan, haddana aad iska ballan qaadaan tanoo kale inaysan dib u soo noqonin weeyaan. mushkiladan oo kale inaysan dib u soo noqonin ayaa haddana loo baahan yahay mataqaana inaad ka baaran degtaan. marka waa muhiim mushkiladuhu inay isgaargaarin. hadhow maxaa dhacaya markay mushkiladuhu isgaargaaraan? gabadhii way qarxaysaa, bug bay leedahay weeyaan, sida buur qaraxdoo kale qarxaysaa. halkaasay la soo istaagaysaa, ifur kuma doonayo, asagana waa buuxaa, waa cub uu buuxaa. maxaysaa kuu leeda? maxaa kana asagana maba rumaysaninba inay tiri kelmadda ifur. markaasuu saddexdeedu hore uga tuurayaa weeyaan. maxaa naqaska iskugu dhajinaysaan? fura naqaska, iska bixiya, sheekaysta, wada hadla, mushkilada xalliya ikhwaani fillah. mushkilada kale waxa weeyaan oo aan mataqaana isleeyahay jacaylka way baabi'isaa, wayna duugtaa aan isleeyahay waxa weeyaan cadamu tajdiid, cusboonaysiin la'aan. kelmaddaa u fiirsa hadde, cusboonaysiin la'aan. talo maxaa la cusboonaysiinaya? oo ma guriga baa rinjigii ka bedelnaa, madaahyadaan furfurnaa? cusboonaysiin waxaan ka wadaa wax walboo noloshiina ka mida inaad cusboonaysiisaan, oo kharash baabana gelinaysaa nin yahowe. yaa wax walboo noloshiina ka mida inaad
shaandhaysaan oo aad huftaan oo aad ka mataqaanaa boorka ka qaadaan. ha u malaynin 20 sano ka hor jacaylkii aad isku qabteen adiga gabadha inuu jirayo maanta 20 sano kadib. may dhibaatooyin badan baa dhacay, waxyaalo badan baa dhacay, duquutaad iyo ciriiri iyo dhibaato iyo mashaakil baa dhacday, waxyaalo badan baa isdul fuulay. marka waxaa loo baahan yahay shaandhayn iyo waxaa loo baahan inaad boorka iska jaftaan, qalbiyada inaad boorka ka jaftaan. tajdiidka waxaan kaloo ka wadaa guriga nafsadiisa haddaad awoodaan inaad kala badashaan. haddaad awoodi waysaan inta guriga taalla marba dhinac urara, daaha marba dhinac urar, sariirta marba xagga gee, kuraasta marba xagga gee. nafsadaada ayaa raaxad dareemaysa, adiga ayaa habbi noqonayo farxad dareemaya weeyaan. waana arki doontaa haddaad sidaa samaysid walaasheeda qaaliga ahay. waxaa marka doonayaa gabadha muslimadda ah ee guriga joogta iyo walaalka isqababa inay nafsadoodu tajdiid ay sameeyaan. qaabka aa u labisanaysid walaasheeda qaaliga ahay, diricii 20 sano ka hor lagugu soo guursaday habeen walba sariirta ha la soo fuulin. diricii jikada kaga soo baxday oo canjeelada iyo mataqaana uu ku dhagdhagana iyo basasha ka soo uraysay, xabiibkaaga qaaliga hala agimaanin. macamustaada soo googo'day hala imaanin sariirta weeyaan. funaanadana aadan isbuuc iska bixinin hala imaanin sariirta qaaliga ah weeyaan. waxaa loo baahan yahay wax walba habeen walba nolol cusub, caraf, dhar fiican, dharkiina qiimaha badan leh. kama wado mana inii gafayeenaatiin dad mataqaana aan ishagaajinin oo mataqaana aanan iscarfinin, laakiin waxaa loo baahan yahay in aad ogaatid wax walbo cusub nafsadu inay jeceshahay. isbedel walbo qiimo badan nafsadu way mataqaana jeceshahay weeyaan. waxaa kaloo aan rabaa inaan ku baraarujiyo, waxaa laga yaabaa gabadhi inay maalin iyo habeen walba iscadayso, istirtirto, laakiin ninkii ay isku tirtiraysay oo isku cadaynaysay oo isku qurxinaysay kelmad yar maasha Allah waa nuuraysa. caaway waa jirtaaye, caaway kanaad wax yaroo tasjiicin xataa inay ka weysaa laga yaabaa. oo adiga iyadoonbaa isdhaqayso, iscadaynayso, iscarfooninaysa, asaga agtiisa maba kala ahaanba wax qiimaa. waana wax aad iyo aad gabdhaha u dhiba weeyaan. mar walba gabadhaada fiiri korkeeda wixii isbedelaad ku aragtid ammaan say kugu noqoto cajalad soconaysa weeyaan, nolosha shaageedana u wareega weeyaan. ma garateen ayuha alaxibatu fillah? muxuu labistarayaa? aroos baad aadaysa, dhaxgal baad galaysaa, waxyaalo muxaramaad bay gabadhi samaynaysaa, dhar bay gashanaysaa aysan weligeed ninkeeda u gashanin. barafuun xaraanka ah inay marsatay isku jabinaysaa, markaasay habeenkii baxaysaa soo mataqaanaa ilaa 2 ilaa 3 habeenimo soo samaynaysaa. ninkan xabiibkaaga ahna 20 sano ka hor baa ugu dambeysay caraftan iyo udgoonkan iyo raaxadan iyo saxan soo carfaysa. taas looma baahna ayadana weeyaan, asagaa ku xaq leh. adiguna nin yahow waxaa lagaaga baahan yahay tixgelin iyo qiimayn mataqaana aad iyo aad u qiimo badan inaad gelisid weeyaan. waxaa kaloo mushkilada kaloo muhiimka oo jaceylka baabi'isa waxaa ka mid ah ayadana in mataqaanaa ciyaalkii iyo gurigii la dayaco oo booskoodii iyo ihtimaamkoodii iyo shaqadoodii iyo waqtigoodii lagu beeldareeyo asxaab iyo saaxiibo. gabadhina saaxiibadeeda iyo aroosadeeda ay ku beeldarayso, aabihiina asxaabtiisa uu ku beeldareeyo. guriga markay labadooda iskugu yimaadaanna mid walba moobeelkiisa intuu saa u qaato Facebook iyo website akhrintooda iyo maxaa dhacay iyo xarakada halkee maraysaa iyo mid walba khalaas ciyaalkii iyo guriga meesha ka baxeen weeyaan. waxaa loo baahan yahay in aad waqtigiinni qaar ka mid ah aad siisaan weeyaan.